jirnaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta u magacaabay garyaqaan Suleymaan Maxamed Maxamuud inuu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka kadib markii uu xilka ka qaaday xeer ilaaliyihii hore Axmed Cali Daahir. madaxweynaha ayaa sheegay in magacaabista xeer ilaaliyaha cusub ay ku timid kadib markii Baasho Yuusuf Axmed oo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka uu soo jeediyey in xilkan loo magacaabo Suleymaan Maxamed si isbedel loogu sameeyo garsoorka dalka. Maxamed Maxamuud Cadde oo ah qabiir saxaafadeed oo arrimaha siyaasadda Soomaaliya aad uga hadla ayaa weydiiyey waxyaabaha la filayo ama loo malaynayo inuu sababsado xeer ilaaliyihii hore ee qaranka iyo sidoo kale waxyaabaha ugu waaweyn ee horyaalla xeer ilaaliyaha cusub. marka ugu horeysa xeer ilaaliyaha guud shaqadiisa asaasiga waxaa ka mid ah inuu xukuumadda kala taliyo arrimaha qaanuunka kuna ilaaliyo qaanuunka. marka waxaa cad in bedelkiisa ay la xiriirto sababo la xiriira in la saruugay in xilkiisii uu ku fashilmay. xeer ilaaliyaha guud xeerarka cusub ee la magacaabana waxaa waajib ah in uu aad uga fakaro hawshiisa inay ka mid tahay in xukuumadda aan marnaba lagu eedayn ay qaanuunka jabiso. maxay xukuumadda u magacaabaysaa xeeraryaasha guud waxa weli maadaama ay khibrad u leeyihiin dhanka qaanuunka xukuumadda dan in lagu eedeeyo inay qaanuunka jabiso. marka dhowr goor oo hore xaalado dhacay aawadood oo ay ugu dambeysay arrimihii ay soo gudbiyeen qaar ka mid mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee mucaaradka ayaa waxaa muuqata xukuumadda inay ka fikerayso in ay muujiso furnaan iyo in ay tusto shacabka Soomaaliyeed in ay ka go'an tahay inay wada hadal la gasho mucaaradka. marka ninkan wuxuu lafdhabar u ahaa kiiska dacwadda ee u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya. xilka qaadistiisana mugdi badan ay keenaysaa dadku walaacay qabaan su'aalo la isweydiinaya. marka arrinta badda saameyn ma ku yeelan kartaa? arrimaha xukuumadda Soomaaliya ee la xiriira badda arrintaasi waa arrin taalla maxkamadda caalamiga ah. xukuumadduna waxay leedahay dad masala oo xagga qaanuunka arrintaa ka matalaya maxkamadda caalamiga ah. laakiin arrintan lagu bedelay xeer ilaaliyaha guud waxay u muuqataa inay tahay mid maxalli ah oo la xiriirta arrimaha xasaasiga ee siyaasadda ee waddanka ka jira. waxaan cad laabada hadda la qaaday maadaama xukuumadda ay laba goor kulan ay la yeesheen mucaaradka lana gorfeynayo sidii wadajir waddankan loogu wada adeegi lahaa. in xukuumadda dhankeeda ay muujinayso inay ka go'an tahay in khaladaadkii hore u dhacay la saxayo islamarkaana ay u tahay mucaaradka in ay aaminaan nidaamka hay'adaha dawliga ee hadda. marka qaladaadkii dhacay dhinaca qaanuunka ah Axmed Cali Daahir xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ma qaadan karin mas'uuliyaddeeda oo haddii tala loo gudbiyo madaxda dalka hogaamisa wax qaadan kara ma ahayeen oo ma la oran karaa isaga gabay mas'uuliyadda qaadan way la oran karaa? marka ugu horeysa xukuumadda marnaba dan uga jirto in loo arko in xukuumadda ay qaanuunka jabiso ama sida dastuurka ku xusanba mucaaradka dastuurka Soomaaliya waxa uu ogol yahay inay mucaaradka howlahooda u wataan sida ku xusan dastuurka. arrimahaas la xiriira ninka u dhuunduleela oo ay tahay inuu xukuumadda kala hadlo markii ay qaadanayso tallaabo la xiriirta nin siyaasi oo mucaarada oo aan dambi gelin marka laga gudbo inuu xukuumadda kaga duwan yahay fikradda sida hawsha loo qabanayo. waxay ahayd inuu tala hufan ka bixiyo waxaasoo dhan. haddana waxaa muuqata in xukuumadda maadaama ay hadda heshiis iyo wada hadal la gelayso in ka badan 30 xisbi in ay muujinayso in
ay ku kalsoonaadaan xisbiyada mucaaradka ah oo wadahadalada xukuumadda la gelaya hay-adaha waddanka ka jira. tallaabadaasna dadka qaanuunka aadka u yaqaana ayaa waxaa laga yaabaa inay u arkaan tallaabo wanaagsan oo muujinaysa in qaanuunka in la isu adeegsado ama khaladaadka laga soco ay tahay tallaabo sax ah oo dalkan ku soo dabaali karta in dadku ay noqdaan kuwa ka hooseeya qaanuunka dalka. way marka isbedelkan oo dhinaca siyaasadda dawladda dhexe iyo xisbiyadii siyaasadda heshiiskooda ma laga yaabaa inuu dad kala saameeyo mas'uuliyiin ilaa iyo haddeertaan 2 kulan ayaa dhacay, kulamo badan ayaa dhici doona. inta hadda la isla ogsoon yahay waxa weeye in xukuumadda ay dhankeeda ka go'an tahay in ay wada hadalladan si looga gudbo waxyaabaha khilaafaadka keenaya waddankani. uma baahna khilaafaad, waxa uu baahan yahay in la isu tanaasulo, in la isfahmo, in hawsha la wadaago mu'ayid iyo mucaaradba. marka hadda waxaa muuqata tallaabadani inay tahay mid xoojinaysa gacanta xukuumadda hadda jirta, maadaama ay isbeddel ku samaysay mid ka mid ah hay-addii ugu weyneyd qaanuunka dhinacii ayada kala talin lahaa xagga qaanuunka. ugu dambeyn xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ee cusub ee maanta la magacaabay maxaa ugu waaweyn oo hor yaalla oo ay tahay inuu wax ka qabto? marka laga gudbo hawshiisa aas-aasiga ah ee ah in cid allaale iyo ciddii qaanuunka ku tumata inuu asaga iyo qareennada kale ee la shaqeeya asaga ugu weyn yahay inay dembi kusoo oogaan. asaga waxaa u gaar ah inuu xukuumadda kala taliyo wax allaale iyo wixii la xiriira qaanuunka dalka u yaalla. qaanuunka dalka u yaalla waxa uu ku qoran yahay dastuur. xukuumadda marnaba dan uguma jirto in lagu eedeeyo ama lagu tuhmo ama lagu soo oogo dembiye ka dhanaa gaboodfallo la xiriira xuquuqda xorriyadda, xuquuqda aas-aasiga ee bini'aadamka. in ay tahay in ninkan la magacaabay ay tahay inuu si fiican looga fajignaado waxyaabaha la xiriira qaanuunka marka ay timaado tallaabada ay dowladda qaadayso. mid siyaasadeed oo kasta waa in uu ku fiiriyaa ida qaanuuni ah, qaanuunka sidaan ma ogol yahay masema tuusaalaan ku siinaya. wadooyinka waxaa jooga ciidamo booliis ayaa jooga oo kala horaya baabuurta. xabadahan ay iyagoo aan cidna u aabayeen oo kale waxay xadgudub ku tahay qaanuun. waa maleeshiyaad baa hay-ad qaanuunka ku shaqaysa. waxyaabo fara badan ayay tahay si ammaanka dalka loo hagaajiyo in aan loo arkin hay-adihii ammaanka u xilsaarnaa inay u dhaqmaan si maleeshiyaad ama qabqablayaashii wixii lagu aqoon jiray. marka xeer ilaaliyahan guud oo cusub waxay tahay inuu wax walba dhigiyo cabadahan sida macnadarrada cirka loogu riday in tallaabo uu ka qaado, in xukuumadda uu kala taliyo mas-uuliyiinta weliba ammaanka ka shaqaynaya ama qaanuunka ka shaqaynaya ama ka shaqaynaya waxyaabaha xasaasiga in ay tallaabo qaanuuniya ku dhaqmaan. marka waan arkaynaa wax la yimaado, laakiin hadda waxaa muuqata isbeddelkan maadaama uu weli xilkii weli uuna gelin. shaqooyin badan baa hor yaalla, eedeymo fara badan oo qaanuunka xaggiisa in lagu xadgudbo aya yaalla. waxaas dhan waxaa la rabaa in uu xukuumadda kala taliyo marka ay meel baranayso arrimo badan oo siyaasadeed, gaar ahaan dadkan xabadaha maalayacniga ay ku dhacayaan oo aanan dembiga gelin rayidka ayna hubaysnayn in waxaasoo dhan meel la saaro. iyo dadkan in ay xuquuq leeyihiin, xuquuqda aas-aasiga waxa qofka inuu noolaado. haddii nin ammaan ku shaqa leh ama si qaanuuni ah hub ku haysta uu si gaboodfala ku dilo, waxay noqonaysaa in qofkaasi magdhow la siiyo. waxyaabo fara badan ayaa loo baahan yahay in xeer ilaaliyahan cusub ay tahay in uu dhib u yeesho. shacabka soomaaliyeedna il furan bay ku fiirinayaan.
haddaad ii doorataan waxaa number 1 ah amniga dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal shabaab baa meesha rabta weerarta shabaab baa meesha rabta qarxisa waxaan haynaa oo kaliya ama dawladdu ay haysaa tacsi iyo cambaareen waxaan bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin dollar lagu baabi'iyay mooshin dawlad lagu rido iyo mid lagu dhiso waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dawladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waqtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo maxaa yeelay wasaaradda arrimaha dibadda jirta oo loo baahan yahay inay socoto ma aha madaxweynaha inuu bishiiba 3 jeer baxo taas darteed waa in la joojiyo dhaqankaas waxaan bedelaynaa oo kale in dawladdu awoodeedu ku cabiriso shacabka intay ugu adeegi lahayd jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah caburin haddaad ii doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weyneed yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo baabuurtan qarxaya maalin walba waxa wax looga qaban karaa $1 milyan bishii meel loo dhigo qofkii soo sheegay $100,000 in la siiyo haddii uu rabna dibadda loo diro waxyaabaha ay qarxiyeen haday yihiin hoteelo haday yihiin guryo inaan dhisno annaga maxay annaga ka masuula annaga ilaalin weyn nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino waxa ugu horeeya haddaan nolol rabno musuqmaasuq inaan la dagaalno siday shabaabka cadowga shacabka u yihiin yaa musuqmaasuqna wuxuu yahay cadowga horumarka إلا المسقماسق معناه هو توجوي هذا دورتان مسقماسق هو تارجت كي هو الريوي ولا دجال منا سفر نوا ولا دجال منا قفكي هنتيذا قارنك كتكرف له ومدل وكعبيننا حبس لنا قدرنا أرنت وجمهم سنوحيته والربع إلا فهمه سياسته وحل خادم سياسته خيانة معها سياسته بين معها سياسته بلنكبح معها دين الإسلام كنا مقبو قف انت بين أشيكته هذا وجبحنا وعيبوي هذا دورتان مدحوين نقول ما ينبضون يا نقولنا وحنقول تجايا عد والبمشي الجوجان وحن حوجنا يا وضع قمدية الصوماليات أو رسمي يعني حوجنا يا مش شهر جوكتنا أقرنا